waxaa maanta madaarka Cigaal International ee magaalada Hargeysa si weyn loogu soo dhaweeyay aqoon-yahan Cumar Axmed Cali Kaar oo ah xubin kamid ah xisbiga xaakimka talada haya ee kulmiye oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku kala bixinayay wadamo kamid ah dalalka Yurub isagoo markaasi maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay qaar kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga muxaafadka ee kulmiye iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaana bilow halkaasi ka hadlay qaar kamid ah xubnihii iyagu soo dhaweynayay mas'uulkani waxaana yiraahdeen waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Cumar Axmed Kaar oo shakhsi aad u firfircoon oo ku tala jiray inuu dadkiisa waddanka u dhiso dhalinyaradiisa iyo dalkiisa maanta ugu soo laabtay waxaan leenahay ku soo dhaw dalka hooyo Cumar Axmed Kaar oo ka yimi Ingiriiska oo Sweden noogu yimi oo Faransiiska tagay oo Holland tagay oo intaas oo dhanba soo maray iyana ku soo dhaweynaa anigu maanta reer Hargeysa Sweden ma yihi Cumar oo soo dhawow mar labaad mar saddexaad ma sha Allah tabaaraka rahman Ali Kaar oo reer Sweden Ingiriiska oo ah markaa mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada xisbiga kulmiye ayaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii hooyo iyo xisbigaagii iyo ehelkii iyo carradaadii waan soo dhaweynaa Cumar Axmed Cali Ali warantay oo jooga Ingiriiska runtii oo ah nin lagu qaaliya oo miisaan badan leh dhammaan waan koornay nolosha iyo guud ahaan xisbiga kulmiye oo aan ka joogo kulmiye degmada Xiraad ka joogo iyo dhammaan howlwadeennada xisbiga ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay aqoon-yahan Cumar Axmed Cali Kaar oo markaasi ka tirsan xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye waxaanu ka warbixiyay safarkii shaqo ku mareeyay qaar kamid ah dalalkaasi Yurub iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay muddadii uu ku jiray shaqooyinkaasi isagoo ka hadlayna waxa uu yiri Khalid Makabil iyo barka maqnaa socdaal shaqo oo Yurub taana ku maqnaa France ka soo bilaabay Sweden oo foosiye iyo ugu tagnay Holland dabadeedna UK ka soo dambeeyay dalkuna wax fara badan baan ugu maqnayn oo hadduu alla yiraahdo guusha aan sugayno hadduu raalli ka noqdo iyo maxalada bisha November waxaan idinku bogaanaa cid walba inay hawsha dhinaceega ka gasho dalkana wax badan buu u baahan yahay loo qabto aniga markay gaar ahaan tahay shaqo la'aanta caafimaadka iyo cilmiga saddexda ugu horeeya waayo qof caafimad dalku wax caafimaad qabo una hayn wax la qabsan karo iyo horumar aan gaari karnaa ma jirto caafimaad haddaad haysin haddaanad cilmi hayn isaga qudhadiisa wax qaban kartaa ma jirto dabadeed in la dagaalamo shaqaanta dhalinyarada iyo dadka sidooda guud ahaanba haysata marka inaanu ka soo bilowna caafimaadka inaanu helno generation caafimaad qaba oo dadkan waxay soo qabteen bedela oo xagga ka sii anba qaada waa mid ugu horeysa caafimaad markaan leeyahay waa in xarun yar iyo gacan iyo wax noocaas caafimaadka waa maskixiyan inuu qofkan aaminsan yahay dalkiisa maxalada uu og yahay inuu dalkiisa leeyahay ayuu yahay علمنا وياشو علمنا وكهرو مركل لجو جارو إن شاء الله حدو إبرالي كنا نقول يا آذان حقوق وحنصار يا دلنا يرى ويوقوا وحني ما كقبرنا إنه بدلي حدينا الدليل يريشري دمحان إسكعد دبنا أيوة كمان استوى ده تقول يجا ماشى الله وريجا وإلى علم يشقى هلا وخالد يوسف حسن فانتستيك تلفزيون عالمي الصومالي نيوز مقالة هرقيسة